marka nimankaani diinta ay sheegay annaga ayaa kaga haboon, annaga ayaa ilaahay ka xigna, annaga ayaa maaragtay ilaah subxana wataala kaga dhow, dad muslimiin ahaan nahay aan dhiig daadinayn ilaahay ka baqahaya. marka waxaa weeye in alla ku-xirnaantana la xoojiyo. markay dhib dhaco alla ku-xirnaan baa loo baahan yahay ziyaada, duco baa loo baahan yahay ziyaada, alla kacabsi ziyaada baa loo baahan yahay, isku xirnaan iyo sadaqo ziyaada baa loo baahan yahay, masaakiinteena aan daryeelna baa loo baahan yahay. marka alla ku-xirnaan ziyaadana waa loo baahan yahay, sabr ziyaadana loo baahan yahay. in waxaan la fahmo waxaan waxay yihiin waa in la fahmo. waxaan waa munkar wey. hadda ka hor baan sheegay qofka Soomaaliga hadduu arki lahaa guri u furan in lagu zinaysto ama guri u furan in lagu sanciyo khamrada oo kale uu ka nixi lahaa, waa diidi waa ka dhiidhin lahaa, gaar waa dhibsan lahaa. xataa waxaa ka daran marka guriga waxaan lagu sameynayo oo nimanka nooca waxaan kasoo abaabulahayaan, guri zina waa ka daran yahay, guri khamro lagu abaabulo ama lagu sameeyo waa ka daran yahay. maxaa yeelay maarata lagu abaabulayaa waa naf muslim si maarata aan loo goyn lahaa wey. marka munkar aada u xun oo shirkiga iyo gaalnimada ku xiga bay nimankan ku jiraan. marka inaan la yaraysan baa loo baahan yahay oo sida khamrada iyo zinada iyo fuxshiga looga dhiidhiyo oo loo dhibsado oo maarata aan lagu dulqaadan karin oo kale ba waxaan la mid yihiin. marka aragtidaas ah in waxaanu munkar yihiin oo in la inkiro loo baahan yahay oo maarata laga dhiidhiyo oo la diido loo baahan yahay, ayadana waa in maarata maxaan ku rahay la fahmaa. sida maqlayseen waxaa runtii yani khilaafaadku iyo dadku ismaan dhaafaahay waa waxa ay ku baraaraan. nabiga sal ly slam xadiis buu ku yihi maaragtay yadharuuna calaa xiini furqatin min annaas, dadka oo tafaaro ku jiro bay soo daahirahayaan. marka waa sunnadu macnaa waa wadadooda ay ka faa'iidaystaan. waa khilaafka, khilaaf siyaasi ha ahaado, khilaaf qabali ah ha ahaado, dadku aan isku kalsoonayn ha noqoto. khilaafkana waxa weeyaan waa fursadoodii in khilaaf nooc kasta uu yahay in laga baxo.